waa xanuun kale ama waa nooc kale oo kamid ah waxyaabaha sababa in dhiig ka yimaado hooyada bilaheeda dambe ee uurka waa dilaaca ilma galeenka xilliga uurka waxa lagu magacaabo uterine rupture dilaaca minku waa kala ta ku yimaada minkii uu ku guda jiray uurku jiraha isla markaana kala qaybsama oo cadad noqda sababaha ama waxyaabaha soo dedejiya qaliin horay minka loogu sameeyay ama dhaawac gaaray uurku jiraha oo qaab qaldan ugu nool gudaha minka qaab qaldan oo hooyadu u isticmaasho dawooyinka minka aruuriya foosha ka hor dhalmo badan ibida oo meel qaldan taala qalooca miskaha foosha daba dheeraata oo waqti badan hooyadu ay foolato qalabka dhalmada loo adeegsado oo dib u geysta hooyada minkeeda calaamadaha lagu garto in minku dilaacay ama uterine rupture oo dhacay taabashada wareegga minka oo la waayo calool xanuun degdeg ah daqiiqado kadibna yaraada dhiig bax gudaha iyo banaankaba dareenkii aruurka minka oo la waayo taabashada caloosha oo danqisa wadna garaaci uurku jiraha oo la waayo si fudud oo caloosha looga taabto xubnaha ilmaha uurku jiraha wadna garaac saa'id ah iyo caloosha oo aad u bararta caqabadaha uu keeno minka dilaaca dhimashada ilmaha dilaaca kaadi heesta hooyada minka oo laga saaro hooyada dibna aysan u dhalin dhimasho hooyada kadib marka laga shakiyo dilaaca minka hooyada uur kale baaris degdeg ah ayaa loo diraa sida dhiiga guud oo loo sameeyo hooyada CBC-ga xubinta wadna garaaca ilmaha oo la fiiriyo iyo saarista ultrasound-ga si loo xaqiijiyo minka iyo caafimaad qabka ilmaha daweynta dilaaca minka ugu horeyn waxa la isugu wacaa dhammaan kalkaaliyaasha iyo takhaatiirta marka heeganka ah waxa lagu xiraa si degdeg ah hooyada oxygen laba kanool oo aad u waaweyn una dhaxeeya 14 ilaa 16 ayaa la geliyaa dhiig ayaa lagu shubaa si degdeg ah lugaha hooyada ayaa sidaas oo kale la sara mariyaa madaxana hoos loo dhigaa si dhiigga qaybaha hoose ku jira uu kor u soo aado oo shock aysan u gelin hooyada waxa la hubiyaa xaaladeeda guud qaliin ayaa loola degdegaa ilmaha ayaa sidoo kale laga soo saaraa marka kadib minka ayaa dib loo dayactiraa hadii la awoodo laakiin hadii aysan suuragal ahayn waaba laga saaraa hooyada minka ilmaha hadii uu nool yahay oo uu bila dhameystay waxaa loo diraa qaybta shaqada ku leh laakiin si loola tacaalo xaaladiisa hadii uusan bila dhameysan waxaa la geliyaa dhalada kuriimada ilmaha ama lagu koriyo ee lagu magacaabo incubator-ka hadii hooyada minka loo hagaajiyay waxa la siiyaa dawooyinka uurka lagu joojiyo si looga hortago muddo 2 sano ah inay uur qaado hooyadaas qoraaladan iyo kuwa lamid ah oo ku saabsan hooyada uur kale laga soo bilaabo markay uur ka qaado ilaa ay ka dhalayso iyo 6 bil ugu horeysa xanaanada ay u baahan yihiin ilmaha dhashay waxaad ka daalacan kartaa qormooyinkiisa buugga qoys deeqe kaas oo aad ka heli kartid lambarada shaashada ka muuqda waa mahadsantihiin